maahan aaway xaggii aadan kuwii dhisay waa baaba'een imise jabhadood baa isqaaqaado niman gaala oo ayagu aan diin layla dirira istiri sida ilaahay u dullaya sooma aadna arkin mid walba way isqaado anaga reer hebel baanu nala yidhaah waa la sameeyey laakiin xaggay aadeen dulli baa u dambeeyey ummadii ku raacdan ilaahay balaayo ku sallida subxaana wa tacaala وعبية الجاهلية ربي با إذن كبحي ورسولك يري مركاسا أنقنا يري ماي وحلق بحي كرمانا وحلق النولاد الله وطو البحن ماي هنقا سارينين هنقا بحين وهو الدين كده مير دين كلمات جرسات يارين تنغط رسولك الله محوري صلى الله عليه وسلم الناس رجلان dadku waa laba qofood qof saddexaadna ma jira wey mu'minun taqiyun kariimun cala allah mu'min taqi ah oo rabbigii ka xabsado wixii loo diray aan laga weyn wixii laga reeban aan lagu arkin ee rabbi agtiisa taraf iyo qayma kule ilaahna uu ballan qaado inuu u gargaaro bil waa midkaas booye midka labaadna waa faajirun shaqiyun hayinun cala allah waa faajir ilaahay diintiisa ka baxay oo shaqi ah oo ilaahay agtiisa cadaab iyo carab bis kule ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal hadalka rasuulka arag yani waa faajir shaqi ah oo ilaahay agtiisa ummadda adduunka ku nool waa awliyaa ullah iyo awliyaa shaydaan rabbi waliyaalkiisa daday asaga addooma u ah iyo awliyada shaydaanka awliyada rabbi wuxuu noo sheegay inay yihiin kuwa calaamo iskale alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada alle aakhira markay tagaan ma baqaan waxay adduunka uga tageenna kama tiiraanyoodaan rabbiyow yeeyihiin waa qoladee ma qolada waabtaa ma qoladuba waaweyna ma niman caloolalaha ma niman sagaal nabad qaba ma nin lacagta akoonka lacag badan ugu jirta mase waa nin yurub tegay oo mastered kusoo diyaariyay oo baris iyo england soo maray waa kee mase qabiil andheeraha tolweyne la yidhaah oo kibira badan oo ka dhashay waa qoladee rabbi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun anaa idiin sheegay iga dhegaysaday waa kuwa aniga i rumeeyo oo nabiga iga rumeeyo nusuusta dabaqaya oo aniga keliya iga baqanaya waxa aan u diidoo dhanna ka tegaya waa kuwaasa yidhi allah subxaana wa tacaala shirkigay ka baqaan xumaataday ka baqaan xaasidnimaday ka baqaan wax walbo alla ka cadhooday ka tagaan waa kuwaas oo allah leeyahy subxaana wa tacaala dadka awliyadeeda noocaa weeye axad walbe tilmaantaa laga hela nin ha noqdo naag ha noqda waa weli ilaahay waa qofka uu yidhi mu'min taqiyun kariimun cala allah oo rasuulku u sheegay sala allahu alayh wasalam awliyada shaydaanku waa dadka aan noocaas ahayn oo ilaahay diintiisa aan lagu karin ee uu rabbi u bixiyey mujrimiin inay yihiin oo cadaabu jahanaba ku waaraya oo rabbi aayaadkiisa marka loogu yeero gafuurka xagga u duwa waayo rabbi waxau caddeeyey inta saaxiibada ama qabyaalada ku saaxiibeen ama wadaniyada ku saaxiibeen muxuu yidhi alakhillau yawmaidin bacdum libacdin caduwun ila almuttaqiin u fiirsada halkaale inta saaxiibada islaam oo iska daba cararto oo waxay isla qabata maalinta qiyaamada cadow ayay isu yihiin isma arki karaan ma israacaan ilaa dadka muttaqiinta alla ka baray maahan inta alla ka baqday maahane in alla intaa irir iyo daarood ku heshiida oo kala qaybsantay oo sii kala wadwaday oo majeerteeniya gooni noqoto hawiya gooni noqoto saydaaniya gooni noqoto shariifiya gooni noqoto bakti hore isku soo dar kulli isu geygey waxaa doonta waxay noqdeen qoladaas oo idil waa qolada alla leeyahay caduwun alakhillaa waa saaxiibo maalinta qiyaamada gobolkood gobolka kalcadow ilaa muttaqiin maahane yaa rabbi muttaqiinta yeeyihiin mutaqiintu waa kuwe alla maxau yidhi aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa kuwa aniga aayaadkayga dhab u rumeeyey waxa ay rumeeyeen dhaqankoodana dhab ula yimid ayuu allah leeyahy subxaana wa tacala waa kuwa haye dadka laguu sheegayo oo mutaqiinta oon ayagu cadowga isu noqonayn kuwaa wey inta ka soo harta cadow ayay isu yihiin waana awliyada shaydaanka axad walbow haddaadan weli alla adugu ahayn weli shaydaan baa tahay hadday kula tahay inaadan weli alla ahayn weli shaydaan on baa tahay la soco sidaas sida aad isku ogaan karto mataqaanaa qur'aanka alla aqri ilaahay baa kala cadeeyey awliyadiisa iyo awliyada shaydaanka waxau rabbi yidhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh maalinta qiyaamada dadka aniga dadkaygaa wajiyaalkoodu way dhalaalin dadka mujrimiinta ee shaydaanka dadkiisana wajiyaalkoodu way madoobaan yayna kala yihiin wa ina alabraara lafii nacim wa ina alfujaara lafii jacim labada qolo la kala tegaya kuwaas wey haddaad baari iyo mudiic alla tahay awliyada allaad ku jirtaa haddaad faajirto oo wixii rabbi kuu diray aadan samayn wixii alla kaa reebana aadan ka harin oo rabbi waxdaaniyadii isu oo kugu yidhi diinta oo ku dhaqan yidhi aad qolo kale u wareejiday waxaad ku jirtaa qoladaa jaxiimo gelayso faajiriinta waana awliyada shaydaanka dadkana qolo saddexaad ma jirto waxa kaloo la doondoonayaa waa maxay haye ma doonaysaa rabbi agtiisa saad ka tahay inaad ogaato alla maxau yidhi khuliqa alinsaanu haluuca idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca bani aadamka u fiirso
dabeecadda bani aadamka oo dhan saa weeye marka waxoogaa xoolaa helo waa kibir iyo tafaaqur badanya waana bakiilnimo badanya dhib yaro markau soo gaaro hoogayba ay argagax iyo balaayo ayuu sheeganaya intaas ayaa bani aadamku ku sugan yihiin markau rabbi sidaa yidhi awliyadiisa ka bixiyey ila almusalliin aladiina calaa salaatihim daa'imuun bu dadka aniga ii dukanaya dadka aniga iga dambeeya oo xiriirka rasmiga ilala maana musalliin buu yidhi musalliinta waxaa loola jeedaa dadka aniga silada ila leh oo saaradahoodu aniga ay ag yaaliin bu alla leeyahay subxaana wa tacala oo salaadooda daa'ima oo xoolahooda xaqa sakadaa ka bixiya oo cadaabka alla ka baqa oo jirkooda sinada ka ilaaliya oo wax alla wixii xugun allahay fulinaya xaaraanto idinla ka durga dadka noocaasa wey dadka mahana inta kale waxaa lagu yaqaanaa shaydaannimada noocaasa war rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala war markaan xoola helna waa kibir badanna baqbaq kibir iyo dambanaayada haye sooma aan arkin jawaadaha markay diridayeen kuwa lagu sheegayo oo oranaya dadka oonu dirin waxbaan u difaac maxaa la difaacaya haye ciidanka ay la diribayaan naagahay kuftaan ayaguna naagahay kufsadaan haye maxaa lagu fiican yahay haye salaaday ka tagaan ايش من هذا war alla baa laga bogo subxaana wa tacaala aawa dadka diinta alla u dirina maxaa loola yahay dad yidhaahda ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada bis baan doonaynaa dadka kitaabka iyo sunnada bis baan doonaynaa waa kuwa misidka iyo madaxaasida loo yaqaan sida kuwa labaad ku magacaawda ikhwaan muslimiin baa la yidhaho waxay noqdeen ikhwaanu shaydaan hay afku intaasuu tabisku leeyo xanku intaasuu qaadi cunayay labada xabul sigaar ku haysta waa shaydaankii marka waa berigi hurdada ka soo baxay shaydaanka acuudu billahi shaydaanka laftiisa ka cuudu bilaysanay bidixaa soo baxdaa maalmaha la yidhi dadiga soo geli maayo masaajida kuma ala isaga xaraam bidica ku haye oo adigu maxaad bidica ka garanaysa maxaa taqaana bal maxaa ta bani aadan ma tihid haye waxaa kaa qiimo badan bahalka daanyeerka la yidhaha ila ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi waladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kama ta'kulu ancaam wannaaru maswan lahum dadkase anaga diinteenna ku gaaloobo alla yidhi waxay u cunaan una raaxaystaan sida xayawaanka oo kale sida xayawaanka oo kale idan dadka aan diinta lahayn waa sidaa yatamatacuun wax alla wixii doogooda ka helay ku raaxaysan muusikada in maqashiim helodaaleysan ila qalanjeeyo magool iyo waxaa heesayo shabkahay markaasuu saas inaha ka siinaya sida inuu janna alla ku jiro wahaakada haye dadka noocaa samaynaya wuxuu allaha leeyahay naarta allay u hoyanayaan sida xayawaanku wax u cunay wax u cunaan mahmahayada ay ku socdaan oo daliishadaan oo diinta waa maxay waxaan ku cunin waa la cunaa waa laga mahmaahay soomaalida been ma mahmaahadeen saasaa lagu leeyahy taas ayaa daliilkooda runta oo naskaa u yahay war ilahay maa ka baqataan subxaana wa tacaala goormaa alle kugu yidhi waxaan ku cunin waa la cunaa haye xaggeed ka keenta arrintasan war allaha laga bogo subxaana wa tacaala taasu diin ma ahan waa in kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga keliya lagu dhaqmaa lagana rus sheegaa labadooda waxa kaloo dhanna xagga waa in la geystaa qofka muslimka taas ayaa laga doonaya waa hadday islaanima jirto tafaaqulkii iyo kibirkii qabyaalada iyo digdigtii hadday jirto waa kaa bal waxaa lagu soo dhaliyo waa la isqaadqaaday qolo walba maalin bay isqaaday etoobiya tageen haye soomaalida markaan si gaar uga hadlo qolo walba maalin bay isqaatay anagu jabhad mucaarada ayaan nahay maxay ka qabteen waa kaasa ninkii haye shaydaannimo iyo xaaraannimo iyo dulmi kama yara oo waa ka badan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala saacad walba waa kusii sugaya maxaa yeelay inta la diriraysa eeye ah laba eyna ninkii af badan oo xoog badan oo marka eeye kaloo garab siiya qaba unba uwadda iskale walaa shaka fiih marka ey kama fiicna waxba meesha ma yaalin sidaa darteed dadka diinta ayagu sheeganayo masaajida ilaahay darti usoo galayo yaysan idin ta'fiirinin qabyaalado yaysan qalbigiina soo gelin maxaa saatan u dhacday hadda misaalan hadday burabaneen kasta oo ka dhaco oo la islaayo ilaahay inaan ka barino inuu isku baabi'iyo ma inuu kala qabooti inaan idhaa ma ahan maxaa yeele waa shayaadiin dirinaysa waana ilaahay cadowgiisa maantana waxay naga taagantay inuu cadaabkeen oo dadka in badan dhulka la goy waxaan sidaa u oranayna xadiidka nabiga ayaan doonayna inaan ku dhaqano waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi allahuma calayka almala'u min quraysh kama dulqaad badni rasuulka ilaahu jamaacada quraysheed ayaan kugu ogahay ee balaayo ku sallid buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala balaayo ayuu ku salliday waxaa la dhigay beder iyo meelo kasii dhibaato badan soo kama maysid marka dadkaasu kulligood cadow diineed bay wada noqdeen gabadh xijaaban baan dhex mari karin oo masaajid inta iska taagto qaala allah iyo qaala rasuul ayaadan oran karin oo kan culummada ayaadan ka baxsanayn oo caamigaadan ka baxsanayn oo bixmusharkaadan ka baxsanayn oo dawlad baadan ka baxsanayn idan maxay mutayseen marka in la yidhaha ilaahu balaayo ku sallid
balaayadii marka way ku dhacday marka ay ku dhacday maxaa imaanaya dadka islaamka way ku gubanayaan waayo rasuulku xadiid buu ku yidhi idaa anzala allahu biqawmin cadaaban asaaba alcadaabu man kana fiihim uma bicithuu calaa niyaatihim waa xadiis saxiixa ku sugan ilaahay markuu cadaab iyo musiibo soo dejiyo cadaabku wax alla waxa halkaa jooga waa ku dhacaya laakiin qof walba niyadiisa iyo camalkuu niyaysnay baa lagu soo saaraya iyo shaqadow meesha u yimi waficlan sidaa weye marka ummad yahay ayadoon rabbi loo laaban oo aan la tooba keenin cadaabkaas inuu ilaahay naga qaada ha suginina waayo rabbi qur'aanka waxau ku yidhi ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim qolo musiibada ku dhacdo ilaahay inta ka raro khayr uguma bedelo ilaa ay naftooda dulmigay galaan ka bedelayaan hadday wanaag iyo khayraad ku sugan yihiin ilaahay inta ka qaado cadaab kuma sallido daacada adoy ku sugan yihin ilaa ay ku cayaarayaan وفعلا دمبك آن قلنا إلى آن رب وصلى الله من إله إنه قرقارنا ولا الساعة دين الله بحر هل الساعة كلية وما تدوى يقول قالوا إليه كتاب سبحانه وتعالى ويا رسولكم أولي صلى الله عليه وسلم حديث سيأكل وحاكم مسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هل قف أو مؤمن أو قردر لقدنا إلهي أفتي سأدون كودن أو بابا وغدي بدنتا سيورنا صلوات الله والسلام عليه وأدون كودن هل قف مؤمنا إمسا مؤمنين أيها جلالك الله دقي يعني جنب الله قال وأنا حكاوة يا جريم نبضونا السبضونا الأباسية السريفية السيادين تواوي وحي أدولا أنك غبيلك ها وغارانك بسنجرين عدو قال الله يقال رسول الله وهي سبحانه لي إيه بحر كيسا لك نقد يبدي ذلك كلمة السرية الدين ده إله إله العين هاي دين إله إله العين ورديت ربي بإله لكن تشوف فيها الله بهاي هاي مركب هرتين الإسلام كله جبه بيه وحرر جبه ده الكتاب كله الله سحبي الله رسول الله يرمي 100% مسلمين بانوا نحن انت الله يسرع كتاب كله الله صاحي أنا قال إلهي وحنا نقاسي نحريسي وحنا نقاسي برواغني وحنا نقاسي نبتقليدي وحنا نقاسي نرتي ملك السؤال الله تجانا جنبي جيب الله وجرى الدين ترى سليم الله عاية مركز يقول لي لا تكع إذا المرة لا يورنا لا تكفي أيضا إلهي الله وانا كسبين من اللي جاري مركز ربي الله قبض سبحانه وتعالى أضوم إلهي هلا النقض أضوم الله هلا النقض أحد والمؤمن صديا النقض وربي أكتيس كريم كواه هذيك لفاجر صديا أوهين على الله آياتها رسولك وحوي صلى الله عليه وسلم وها أكفى نيسان هداك كتاق ويدان أذنك إيا قوة أكفى نيسان فحم من جهنم نار جهنم اللي إلى آيات دخوله النقانيسان دخوله آيات النقانيسان إلها با إذن كسيدة سبحانه وتعالى دخولها ورى الله لك سبحانه وتعالى انت دخولين لكسيدين وأن مصيبين لكسلين ولله عردي سنة قد انكهر رسولك صلى الله عليه وسلم الحديث سيأكوي وكسب المسلم من نسر قومه على غير الحق ورد أو كبس منك أقرقار حق الآن وبعدل أقربية وقرب كسية قردرائي كسعلان فهو كالبعير الذي يتردى على بئر وحولم يجي الرتعال كل عي مركو عالك كل عي كجلال ينزع بدان البيت انت كبغ نغاتير انه صابح الربيعها او بناك اسكان وما صابح كذا معناه هلاك او كسوغان yahay waxa laga cabiray ratiga ku dhacay aalkee lagu ugu jiraan meel oo ka baxay aan arkaynin ee oranaya dhaqaaqo balseynta dhaqaaqo bal wax qabo balkiilayeen asagu wax qabo ay isleeyeen laakiin shamaad oo san ka baxayn oo waliga ku jiri doono haawiya ayo ku jira halkaas ayo ku jira waxa la isugu gargaaro oo garab la isku siiyaa waa saydaanimada diinta Allah baranaya hadaa tira waa lagu caayaya هذا ترى مسلم بانه قبلها أجنبي قال مثلا ما ين أدرتي حاجة ولا الكورن هاي وقرنوها الله عيال وقرنا يا هذا قبضوا قفور كسوح على صفي جوارد عاد عنته وهاتيه بورس الشيطان أي قرب كثير تأبيه وسلامان لي أهلا وسهلا يقرنا يا دين تعالى مركز ولا بيتسوح ولا يقرني الله وضي ولا جاي بريرت بيبان هنا أبيض بين كسوح وحنا أنا أركي جرين هاي ما حد سلام كتغاني ولا الله كبقى سبحانه وتعالى والقرمان اللي يذكر الدين تعالى الدولان قوة النقضة وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى والحق كل ذلك هلكا مركا محاسو قاليا وحل ولايا قومكي سبط وقال قاليا وهو القبيل كاغا كتاك وليسان دين الله وافق سنين ظلمي ويا وظلمي حولها جبهتها الله عرورنا يا وظلمي رمت مرة ثانية حنا قيل قل موتوا بغيظكم عربي إن كل انت هذا كحر وليس أرين تاسي أنا إيردي يدارو حقا مكانا يعني وإني سيقل هاي سو قرن ميسان حقائق مركز أفتان وحاران سيلني كيف كبحية وحان سرحي إسلام كؤدر إلهي وعذابية قرابة إن الحريرية